madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa ka qayb galay munaasabad kooban oo lagu dhagax dhigay maktabadda guud ee Baydhabo taasoo ay abaabulkeeda wadeen aqoon-yahano u dhashay koonfur galbeed oo isugu jira qurbajoog iyo kuwa ku nool gudaha dalka iyadoo dhagax dhigga maktabadda hadaljeedinteedii uu ugu horeynba ka hadlay Professor Kuuso ayaa ka sheekeeyay doorkii madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ka qaatay sidii loo dhagax dhigi lahaa isla markaana looga yeegleeli lahaa koonfur galbeed maktabad guud wala anka horeeyo oo unu kulligaan intii ka mashquul ata intii umadun lagu dhisa masqanta madaxweynaha koonfur galbeed yani ona meelun mahani dhawaayna shileediye madaxweynaha may fadawaa intii aan siin sheega teamkum oo project waa kumid ay may kuwadneha يعني أسوبا قالنتك قوضي إرهي ولاقيشينا أنيني إسنسين كميد أها ساساك ودانين إرهي ماركو أنو أوغيك لكبلاو مدوينا غانيو لكن أنهان ميني كالجارة غروب كي أما تيم كي ولاون كشاقيا انك حساب تموهاين انتي انك جارة مدوين إيدا أنمهد سنتا ماركا والسلام عليكم ورحمة madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ka hadlay dhagax dhigga ayaa ka sheekeeyay muhiimadda maktabadda Baydhabo u leedahay bulshada koonfur galbeed Soomaaliya isagoona xusay in aqoon-yahanadii u dhabar adeegay ee juhdiga badan ku bixiyay hirgelinta dhagax dhigga maktabaddan ay yihiin kuwa taariikhda koonfur galbeed Soomaaliya ay xusi doonto sida Professor Kuuso Abuukar Sheekh Axmed Albadri iyo rag kale oo madaxweynuhu sheegay inay yihiin wax tareenka iyo haldoorka bulshada koonfur galbeed Soomaaliya koonfur galbeed oo dhan dadka koonfur galbeed oo dhan ay leeyihiin waxay ka mid tahay horumarinta iyo kor u qaadinta waxbarashada dadka reer koonfur galbeed iyo bilow u tahay oo ka mid tahay qaybtii ugu muhiimsan ay tahay haddii bini'aadanka aanan maskaxda laga dhisin oo wax la barin oon horumar maskaxeed uu helin oo horumar aqooneed uusan helin ma suurtagelayso in jahli iyo faqri iyo dhibaato iyo ciriiri laga baxo marka waxyaalaha muhiimadda noo ah oo priority-ga koowaad aan siinayna ay ka mid tahay waxbarashada meel dadka reer koonfur galbeed ay leeyihiin oo maktabada oo manhajkoodii yaallo oo taariikhdoodii taallo oo waxbarashadoodii taallo oo ninka ardayga ah iyo ninka macallinka ah meel kasta uu joogo intuu wixii uu soo xasuusto uu soo baxo uu imaan karo uu ka fiirin karo oo ka arki karo inaan helno waa muhiim waxaa muhiim ah oo kale kor u qaadista waxbarashada iyo manaahiijta aan kor u qaadayno oo ay ugu horrayso inaan qorno fartii alif mayga inay noqoto maktabaddii ugu horreysay oo lagu bilaabi lahaa oo buwaagta ugu horreysay la dhigi lahaa oo dhallinyaradan isxilqaamay oo wakhtiga dheer aan soo soconnay oo reer koonfur galbeed uu hogaaminayo Professor Kuuso runtii annaga naftirka annaga waxay noo tahay dhiirigelin weyn haddaan nahay dowlad goboleedka koonfur galbeed maktabadda la dhagax dhigay ayaa la filayaa marka la dhiso oo la dhammaystiro in ay noqoto maktabaddii ugu horreysay oo laga furo koonfur galbeed Soomaaliya isla markaana ay ka faa'iideysan doonaan dhammaan bahda waxbarashada iyo dadka ka shaqeeya cilmi baarista ee u dhashay koonfur galbeed baahida weynna u qaba maktabad laga soo dhalaacdo cilmiga kala duwan maadiga iyo diiniga Mukhtaar Sheekh Aadan Dalmar telefishinka iyo raadiyaha dalsan Barshawiiney Baydhabo Janaa.